kulankii labaad ee koobka gobolada Puntland ayaa galabta la ciyaaray waxaana madaxa iyo majaha istaray gobolka badda cas ay marto ee bari iyo gobolka dhirta dhalaaliya oo dhuxusha ka dhigay Heelan sanadkii hore ayay qaaday koobka gobolada Puntland iyadoo ay u shidan tahay heestii ahayd deeqay waan ku dhoofin lahaa dhahar baan ku geyn lahaa heeladii iyo dhaantada lagu soo dhaweyn lahaa bari waxa ay kamid tahay xoogweynta looga haray dheelista kubadda cagta waana gobolka ay ka soo baxeen لاعبينتي لهلين وايي ee geyiga Soomaalida gees ilaa gees kubadda ka soo dheelay waa laba baale iyo Sakhrawi reebista Sakhrawi ee tartanka gobolada Puntland gobolka bari oo matalayay warar ay ka soo saareen iyagoo ka walaacsan waraaqada ka soo baxday xiriirka kubadda cagta Puntland ee sheegaysa in Sakhrawi uusan u safan doonin xulkiisa bari sababo la xiriira in ciyaartiisu ay ka gudubtay xandaabka Puntland xarig iyo xirana midna aysan u hayn sanadkan maamulka ciyaaraha Puntland awaale oo camiran ay ciyaartu si toos uga bilaabmatay bilowga ciyaarta koox kasta tamar badan ay haysay waana sababta keentay in banooniga budboodkiisu u bato Heelan oo rabtay in ay koobka sanadkii labaad difaacato iyo bari u baahi qabta qaadista koobka ayaa iswajahay koox kastana tabteeda ay dheelaysay taageerayaasha shacabka ka tumayay siliga banaankiisa waxay dhiirigelin u ahaayeen bortaha banooniga iska difaacayay laacibka khadka dhexe maamulayay iyo wiilasha labada baal banooniga ka baacsanayay ishardin iyo adkeysi badan oo koox kasta ay dhankeeda ka sameysay qaybtii hore ee ciyaartu waxay ku soo dhamaatay eber daqiiqada dhowr ayaa la isu nastay tababarayaashuna dhiirigelin ayay siiyeen ciyaartoyda si natiijo fiican ay qaybta dambe u keenaan waxaa la isu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta waxaana ciyaartu bilowgii ahayd mid xamaasad gaar ah wadata maadaama labada naadiba ay badisradii ahaayeen in cabaar ah haddii ay ciyaartu sidaas ku socotay xulka gobolka bari ayaa bedelkoodii koowaad sameeyay bedelkaas ayaa noqday bedelkii bitiga iyo badiska Fabio oo ahaa wiilkii koobka gobolka mudug la qaaday galmudug oo bedel lagu keenay ayaa isla lugtii koowaad oo banooniga uu saaray la tigsaday gooshii koowaad ee gobolka bari ay dhaliso gooshii koowaad ee kulanka dhexdiisa la dhaliyo iyo gooshii koowaad oo kulankan dhaliyo ciyaartii markaan xamaasad gaar ah ayay yeelatay intaas wixii ka dameeyay dhaguhu waxay maqlayeen dhawaaqa durbaanka taageerayaasha gobolka bari indhuhuna waxay arkayeen leesha ciyaartoyda gobolka bari dhowr daqiiqo ay ciyaartu socotay gooshii labaad ayay la yimaadeen xulka gobolka bari Heelan quuso caseerba casar dheer ayay quusatay ayaa kor loo yiri laakiin si hadalkaas kul iyo kadeed midna kuma hayn waxay si ka baqayeen sikinada kor u socda iyagoo xisaabanaya inta daqiiqo ciyaarta ka hartay soo kuwan sikina gudahoodii ku dhaliyay gooshoodii koowaad waa gooshii rajada waa gooshii reereenta waa gooshii uu baxbal ku riyooday Heelan sidii looga bartay ay u dabaaldegeen oo waa iyagaan barkaday koobka isla markaana sawirtay in ay koobkii qaadeen laakiinse saacadii loogu talagalay in la dheelo ciyaarta ayaa si kadis ah garoonka dhexdiisa ugu kor dhamaatay waxayna ka war heleen dhawaqa firimbiga uusan firimbi kale ka dambeyn ee sheegaya in ciyaartu ay halka ku dhamaatay qaadan waa iyo qus ay ku noqotay in laba gool looga badiyo si fududna kulankii koowaad beerka dhulka lagu jiido qaadan waa ay ku noqotay in gobolka bari uu ka badiyo biruhuna ay dhowr jeer ku sigteen in ay geesaska ka jabaan sidii sanadka hor koobka Heelan ay qaaday dhagaha uga jabay Maxamed Cabdiraxmaan Saciid Murcay Media